munaasabadan oo lagu abaalmarinayay ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadkii shahaadiga ee ka qabsoomay guud ahaanba Soomaaliland ayaa lagu qabtay dugsiga sare ee degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoodle waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi maamulka degmada Qorlugud iyo sidoo kale maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi Qorlugud waalidiin iyo xubno kale ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah maamulka iyo macallimiinta dugsigaasi degmada Qorlugud oo ka warramay doorka iyo dadaalka lagu bixiyay ardaydan kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadka shahaadiga ee Soomaaliland kaalmaha ugu sareeya noo galay toban kamidii waxay ku bixeen darajada laba kamidina waxay ku bixeen darajada B+ ayay ku bixeen arintaasi runtii waa arin taariikhi ah oo qiimo badan u sameynaysa degmada Qorlugud iyo iskuulka Musalule Qorlugud Secondary School iyo dadka deegaankan ku nool haday tahay Maxamed Kaahin haday tahay waxaan ku madaxdii kale wax alliya wixii gacan ka geystay oo Cabdalla ugu horeeyo ee gacanba ka geystay qurba jooga qolqol jooga ganacsatada nuur ducaale maxaan ku dhahaayay Beder in allaaliya intii gacan ka geysatay dal iyo dibad degmada Qorlugudna kaalin yar may qaadan waxaan idinku boorinayaa oo aan idinku talinayaa oo aan idinku la talinayaa oo idinku soo dhaweynaya oo markastaba idinku barbar taagnahay sidii aad jaamacada u gali lahaydeen ardaydeena qaaliga ahayd ee ka qanshabisay dugsiga secondary Musalule Qorlugud waxaan leenahay hambaliyo ninkii maanta iskuulkan maanta keenay bashbash iyo barwaaqada iyo libtaa keenay Cabdalla Musalule ee dhisay aad baanu kuugu hambalyeynayna ka qalin jabisay 12 sanood wax noo dhiganaysay 12 sanood tacab baa ku jiray tacab rag iyo tacab dumarba waa ku jiray hooyo iyo aabe waa lala tiigsanayay waxaanu leenahay ardayda in loo tixgeliyo gudoomiyaha degmada Qorlugud Maxamed Cumar Faarax Jarkunaban iyo sidoo kale xubno kamid ah odayaasha deegaankaasi Qorlugud ayaa u mahadnaqay maamulka iyo macallimiinta soo saaray ardaydan kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadka shahaadiga Cabdalla Musalule oo ah aabaha waxbarashada ama deegaankan ehelka u weyn ee maanta tacabka halkan ka muuqda leh aanu leenahay adiga waanu ku ducaynaa duco gaar ah baanu ku siinay ardada waxaan leeyahay ardayay waxa leeyahay baahayay dhaqaatiir waxa leeyahay baahayay macallimiin maalin walba waxaynu baadi doonaa macallin waxaanu tacabka idin kala qayb galaynaa oo idin kala hawl galaynaa oo dabada idin kaga wadaynaa inaad noqotaan macallimiin dhaqaatiir beerihii gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadka shahaadiga ee Soomaaliland ee degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoodle Khaliil Barraawraan TV-ga qaranka Soomaaliland degmada Qorlugud ee gobolka Buuhoodle